sida loo daweeyo maalan qof baa xanuunsan baa ku yimid qofka asaga ah dhakhaatiir badan buu soo maray waxa lagu yiri waxba lagama qaban karayo marka adigoo muslim ayuu qofka ku yimid ama raaqi ah ama cilmu sharciya ruqi sharciya garanayo ku yimid marka qaabkeed u daaweynaysaa ayaan ku baraya marka hore waxaa number 1 muhiim ah environment qofka uu kugu imanayo Afrika waxaa caan ku ahaa madaaris xitaa quraanka lagu barto meelo qashina iyo meelo laabay ku yaalaan meelahan dambe dadka ruqyada lagu saarane meelo mataqaanaa 200 qof isdhex fadhiyaan meelo mataqaanaa 1000 qof ay saa u fadhiyaan u malayso mataqaanaa dad qaxooti oo raashin loo qaybinayo oo baaldiye iyo koob iyo hor yaalaan yani qofku waa inuu saa at least hospitaalada iyo klinikada u sameeyaa oo appointmentiyo dadkii u sameeyaa ballamo u sameeyaa qof u qaabilaa ahwaashiisa u wareystaa kala saaraa waxan qofka haya ma wax il aba ma wax xasad aba ma wax mataqaanaa behaviorkiisa dabeecadiisa keentay ma domestic problem ku dhacayba ma trauma iyo dagaal ku dhacayba ma dil loo geystayba ma mental ba ma maskaxiyan ba ma artay ma kufsi iyo dhibaatooyin uu soo marayba waxyaalo badan baa keena qofku inuu cilmu nafsiga uu ku dhaco marka halkan marka hore aan sameeyay ma sha Allah sheekhu arkaya storekan waxa noogu jira waxyaalihii dadka aan siino biyo u badnaa quraanka ku akhrisanay zamzamka ayaa noogu jira waxa kaloo sidoo kale noogu jira halkan toyski iyo مثلا ciyaalkii baa مثلا markay ku yimaadaan ilmaha baa lagu keenaya ilmihii yaraawo inuu markaa uu heli karaya waxyaalihii aad ku soo dhaweyn lahayd oo ama candy ah ama wixii la cunayay aha waa inuu heli karaa oo maartay ilmihii yaraa ama autism ka qabay marka maartay qaybtan horta waa qaybtan weeyaan qaybtan kale waxa weeyaan مثلا dadka qaar waxay ogal yihiin markuu ilaahay quraankii uu ku caafiyo in ay bulshada u soo gudbiyaan markoodii hore iyo marka dambe sayihiin soo halkan istuudiyihiin lalkii wixii baa ku yaala oo dadkii ay qofka maartay lagu wareysanayo kayfa kunta qabla alquran wa kayfa haluka ba'da alquran oo kale ma sha Allah qaybtan oo kale hadda ma sha Allah waxa weeyaan samiicad baa kan taala yar dadka qaar baa waxay jecel yihiin in samiicad yar weyn xogaha arinta samiicadan ka hadlaya nin baa shalay yimid wuxuu yiri waxaan tagnay buu Hargeysa iyo dhulka baan tagnay buu yiri nin baan u tagnay quraan inuu u akhriyo wuxuu yiri bas markuu raysanka nagaga shubay kadibna samiicada waaweyn buu nagu furay xuubka dhagaana soo qarxay buu marka anagoo wada wareersan oo silicsan baan soo baxnay buu sakaraad marka mana la daweeyay mise waana laga waalay buu marka waxa loo imanaya ma aha aalaadka iyo qalabka haysatay waxa loo imanaya waa kalaamullaahi iyo nuurka quraanku uu wato wax isku daweynay marka halkan oo kale waa meesha dadka ma artay in badan aad artay qof kala garanay qofka cararayo kala kala keenaa hadda waxa ila jooga walaal kamid ma sha Allah qaybtan waa dadka iyaga lagu soo dhaweeyaa walaal baa ilka quraanku akhriyo insha Allah taala halka ay fadhiyo haduu ilaahay yiraahdo كو قفك لما دلو معك يد الله يودي له حديد قف الدل وحلوقة ساريو أما الدل لو عافنايو حروين كبوج مدى إيه فرق إيه مالها متقانايا حبيب إيه خبيب إيه تجان بالجيلها هكا ألقى صار قصو صار لها قفك حدي لعل أو حنون قبا مرض عضوي عليه الروحي دل وما بحنا واحد دلي يجوبيا وكلام الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالية ذكرى والطور آياتها العلوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم آياتها ساعوني دل وما بحنا بس إنسان كان لغش وما بحنا وحب بهي كريته قف تقوي سنة أي لسنت هاي مركا لوي معدنا وحا كجرا أي لبسنيان أي عمل كي مركا لغو قبناي مركا هل كان أوكر مثلا فرب هذا إيجو إن شاء الله تعالى كو سمعت البلغة لو قالين دونا عندنا هل كان وحا إيا لا مكسر ذي يوحي ريران استعماله سيدو كان هل كان أوكر مثلا قف مركا أو يمادو أنت أنا قرآن كان لسارك كهر هل كان سوف ريسانيا هل كان داتتي بأي تالي كمبيوتركي waxaan weydiinayaa ma aragtay xaaladiisa marka hore مثلا hada wiil baa ii yimid maalin dhaweyto istii dheer buu ka yimid waan wareystay maxaa kugu dhacay waxa uu yiri timahayga daata soo hadii timaha ku daataane jin waxa laga yaabaa il wax inay tahay xagee yaa hadiiskee soo qoro qofkii timuhu ka daataan il baa ku dhacday baxgeed ku aragtay marka wuxuu meelaha ka daawaday symptomska ama calaamadaha isha lagu garto tinta ka daadata dawadaas isticmaal saliida ismar wixiiba marka uu isay ku qafin marka waxay hawsha ku soo gabagabooday in vitamin A giisi iyo waxyaalaha heerka ku saabsan ee maanta nafaqooyinka ee dhacsan yihiin in mataqaanaa kind of depression inuu jiray isaga haystay waxa meesha yaalay sidoo kale in ma aragtay isu tirnayn vitaminaadkiisi oo isan aynba wax ku shuqul lehba ma aragtay hawshan cayn imina ku shuqul lahayn marka wareyskana ku ogaan doonaa qofku inuu cayn qabo inuu xasad qabo inuu il qabo inuu jin qabo iyo inuu depression yahay inuu anxiety iyo murugo haysto halkan ku kala ogaan doonaa wareystiga kadib dan hadda insha Allah taala walaal halkan ii fadhiya halkaas uu joogaa bismillah wax la dhaho dilma ma jiro uu yar ma artay garanka laga yar dhigay ma sha Allah kan cud ma hayso qoonayda bismillah soo wacmiya بسم الله الرحمن الرحيم طيب اوكي بسم الله هذا ولا او كلام ما شاء الله بسم الله ثم الصلاه والسلام على رسول الله
أولا بسم الله والمغنية كلام الله سبحانه وكوي الملا أول آذان وتقدم ساقفك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة تقول أنت كذب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ليلة كذبنا آيات كشفها الله قلت ترجع غفوك بالله بيسا بيها زمزم كأبوه ولا سي زمزم كاسوق مرة عبيا أو مقروء قرآن كأخر سنة يحب عبيا ونقول لي سنة إنه إلهي سبحانه وتعالى ما تكو عافيه قف كادو أنتو كيما تقول لو قشوق أسبوع يسي لبا أسبوع يسي بالإسي قف كاس مالمو كحريقين تي ما عارف ما قف كاس قف حريقين تي حرا ما أعرف تروح لي يرادو إلهي سبحانه وتعالى إلهي يشفني وإذا مرضت فهو يشفين إلهي يعاف قفك إنه يهدا قفك مركو سيدا يراهدو يسرع وحيد إن شاء الله قفك مركو سيدا يراهدو أيوم أرتي إلهي سبحانه وتعالى عافمات سينا يا محيري عافمات كو حرية يا شيخ إلهي سبحانه وتعالى عند سكون جرا نعم dad waxa loo yimid lix birood waraa lagu soo waday waxbana iska soo bedelay maxay yeelay maalmay ku dhaganaayeen maalmaha loo qoray maalmuhu tagay maanta xiska ka bedelay halkan dad buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala wandhay ku caafiyay waxa caan hadda wiil youtube-yada ku jiro oo jin yahuud uu ka baxayo 15 minute buu la joogay ilaahna waa caafiyay sidii buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku siiyay marka sheekh axmed ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barayaa inuu walaha ruqaada maartay sameeyo inuu ilaahay taa fahamsiiyo oo ay bartaan oo is dhisaan maadiyan iyo diiniyanba inay is dhisaan culumtan kale ay wax ka bartaan ay ogaadaan qofkani boqolkiiba 80 dadka yimaada ma qabaan il iyo jin iyo midna ma qabaan dhibaatooyin badan baa haysta weliba wadooyinka ay joogaan Soomaalidu dhibaatooyin badan baa ka dhacay dil baa ka dhacay kufsi baa ka dhacay waxa ka dhacay trauma adduunka dadka noocaas Soomaali waxay dhakhaatiirta joogtaa half oo half inay cilmu nafsiga ama psychologiga ay bartaan bay maxay ummadeen wada baahan baadiina dhib baa ka socda gudaha dhib baa ka socda ilaaju nafsiga u baahnaan lahayn kulligood marka hadda meel dadka aadan malaha ka ahayn in raaqay in loo tago marka waxaan oran lahaa insha Allah ta'ala walaaluhu ta'ala ku dadaalan bi idnillahi al-bari saasay meeshan u shaqeystaa Sheekh Axmedow wallahi san bay leedahay system dawladda ku xiran nidaam awaaye marka haddana quraanka baan u ku noqon doonaa insha Allah hadii dhageysanaysan saan u akhrina khayr hadii kale insha Allah ta'ala Sheekh ku jideynaa hadii Ilaahay yiraahdo halkan biyar baa ku jira quraanku akhrisan yahay waxyaalaha isticmaal maxkamada dhuf gudaha laga matuf ama tufta gudaha lagu sameeyo kor baa laga akhriyo quraanku uu ma artay qofka waa koraj inta lagu akhriyo quraanku waa ma artay waa galaya ma artay أنت تفتح أدوة أما بتربية قبا أما عقار شو قبا أما مدرك لا قبا أنا أنت تفتح عنك ولا تفتح معه كده من قفكي أتساك وجود بسعود كان جماعة مركو حكى في عن إن عندي مصلحة أنا قرآن كي فكرك أقصى مركز كده من مركز أكبر بسم الله طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا